gogosha ay shinida fidisay waxa ka soo qayb galay dhammaan afar lugoodley iyo laba lugoodley baaleyda waxayna go'aansadeen in ay xukuumaddu ay dhistaan oo xukuumaddaas ay noqoto mid run iyo cadaalad ku shaqayso isla markii waxay doorteen gudoomiyihii baarlamaanka waxaa loo doortay qalowle wuxuu yidhi si degdega madaxweynuhu ciddii uu tartamayso farta ha taagto waxaa markiiba maroodiga gacanta u taagay wayel baa gacanta taagtay dawacaa gacanta ka taagtay wayelow adiga maroodiyow maxaad adiga aad madaxweynimada uu tartamaya yidhi wuxuu yidhi dadkan dulloobay oo diintooda ka tegay oo darajadu iska dilaa dawaabta wax ma dooriyaan doorka may soo gala allah daa'im weeye maroodiga waan ka qoray wayel baa soo bado waxay tiri qalbi qarxay qaran dumay qori lala wareegaa horsii dhacaysaa marka wadaagnaa khasaarar ma qabno qadada waa helnaa waan ka qoray dawacaa soo boodo waxay tiri cilmigaygii casharada waad qaadan wayseen dowdad baa idinku jirto cid baa isu dishaan casiidkaad caabudi wayseen ciiddaa idinka xarootay caalamkaa idinka sabrey waan cararayaa cagtayda gudoomiyaha baarlamaankaa yidhi cararkaaga ma ogi shirka waa loo dhan yahay fadhiiso dawacay ee si degdega madaxweynaha loo doorto barrafsii loo lahaa maroodiga madaxweynaha la yidhi wayelna ra-iisul wasaare wasiir gaashaandhigga harimacas arrimaha dibadda shabeel arrimaha gudahana waraabo boosta isgaarsiinta gorayada gerigana warshadaha shaqada arrimaha bulshada daanyeerka karowga qorshaynta guumayska diinta arrimaha garsoorka duucada waxbarashada daa'uuska dalxiiska uurayska maaliyadda dhismaha iyo guryeynta aboolka ciidka xanaanada xoolaha gorgorka gaadiidka cirka gaadiidka dhulka dameeraha wasaaradda beeraha garanuugta weerwere warfaafinta idahana caafimaadka macdanta iyo biyaha looda badda iyo dekadaha geela dabacaddeeya madaxtooyada ganacsiga unfada wasiirka xukuumadda iyo baarlamaanka gaduudana وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولتي حكومتي انت